بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى nicmooyinkiisa uu nasiiyey faraha badan wax la soo koobi karo maaha. Marka nicmooyinka ilaahay uu nasiiyey waxaa ka mid ah acdaadan jirkeenu ka kooban yahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala sida quruxda badan uu noo abuuray. walaqad khalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim. marka wajigaada, indhahaada, sankaada, dhagahaada, gacmahaada, lugahaada, qalbigaada, kali intaas oo dhan waxa weeyaan waa nicma min Allah, nicam min Allah azza wa jalla kamida. marka sidaa marka ay tahay, Rabbi subhanahu wa ta'ala waxa uu na amray in xibnahan uu ilaahay uu nasiiyay inaan u isticmaalno kaliya wax adduunyo iyo aakhirana anfacaya. adduunyo wixii ku anfacaya oo khayra oo noloshaada wax ka taraya inaad u isticmaasho. wixii aakhira ku anfacaya oo jannana ku gelinaya, naarna ka fogeynaya, ina iyaguna aad u isticmaasho. kelimadeena marka waxay ku saabsan tahay carabka amba lisaanka. xifdhu lisaani, carabka oo la ilaaliyo. إلهي واتولي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. إنه هو مسؤولية سارا، لقاها مسؤولية سارا، أفك مسؤولية سارا، حبنا خدنا مسؤولية با سارا. مركا لسانكو وحود نوا كدريه. لسانكو وحان ودن وحاو قلبي وجعلاضو لقوه أي مقلان، indhuhu ay arkaan, luguhu ay maxaa lahaayee talaabo u qaadaan. intaasoo dhan waxaa cabiraya calooshaada waxa ku jira, waxaa cabiraya daa'iman wada lisaanka. marka qofka hadduu qalbigiisa ama calooshiisa wanaag ka buuxo, dee waxa weeyaan weel walba wixii ku jira unbuu soo daayaa. haddii qalbigiisa wanaag iyo khayr ka buuxana, lisaankiisa daa'iman wadan wax wanaagsan iyo xigmad iyo wax laga faa'iido ayuu daa'iman u aweedan uu ku hadlaa. marka in marka lisaankaasi oo nicmooyinka ilaahay uu nasiiyay kamid ah oo aadka u qiimaha badan, in qofku uu ilaaliyo waa laga maarmo. walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm. macnaa waxaadan cilmi lahayn, aqoonteeda lahayn, qofka muuminka oo maxaa lahaay samciga iyo aragga iyo maxaa lahaay daa'iman u abadan qalbi waa la weydiinaya qofka. marka inuu marka ila lisaanka hadii xataa qalbigaadu wax ku jiraan oo aadan ku hadlin, de waxa xataa wasaawis qulub qof loo ma haysto. ilaa nabi sallam uu leeyahay qofku maxaa lahaay ma taxadath bihi nafsuhu, waxay naftaada kugu sheekayso maxaa lahaay lagu qaban maayo ilaa qofku uu ka indaaq maxaa lahaay uu kaga hadlo ama qalbigiisa uu maxaa lahaay ka ictiqaadiyo oo waxaasi uu rumeeyo. ولذلك إلهي سبحانه وتعالى وتوليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى قفك ابن آدمك وحبكم الله هذاكم الله سوغرمس إلا لديه رقيب عتيد. إلا وحال لتاغن رقيب عتيد والله ملقا وإلهي شرفي وابن آدم كان لجوغا وأن فاروقين وإسبدليا. عليه السلام يتعاقب محال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. عليه السلام وحلو هسكين بدليا ملائك كون صبحي صلاة الصبح بيسوق ليان ilaa casirkay joogayaan, haddana laba kala bedelaysa, casir bay soo galayaan, ilaa salaad subax ay joogayaan. salaamad ku waata uu leeyahay marka labadaas salaadood in la ilaaliyo waay. Nabi salaam uu leeyahay ilaahay markay u fuula ilaahay asagoo wuxuu leeyahay adoonkayga say u tagteen, say kaga soo tagteen. wuxuu leeyahay ilaahay waa salaad dukanaya u tagnay ama subax ama casir, haddana asoo tukanaya ka soo tagnay ama subax ama salaad casar, markaba hadba waqti maxaa la malaa'iktu isbedelayso. marka qofku markuu hadlo amba wanaag ha ku hadlo ama xumaati ha ku hadlo, kulli waxa weeyaan waa la qoraya, waa la tasyiinaya. salaamatu alayhi maalinta jumcada malaa'ig ba masaajidka albaabkiisa istaagaysa, fataktubu al-awwal fal-awwal, waxay qoraysaa qofkii ka horeeyay. marka waxa kan aan ku hadlayno waxa kan aan sheegayno waxa kan aan ku dhaqmayno
كل قد مكتوبة. ولكن لا يتقول لي ما أنت قيامه وليه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من قالت قيامه حليه واكن بوقاغي وحي لغو سو قري تسكاخ هذا محل waxaan geystay marka qofku markuu ولذلك هذا ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. dadku maanta waxa way adduunku maxaa la lahay aamiki waa iska yaraaday المصريين القالبة إلا من رحم الله عز وجل. دكامده شركاتك ماشي لقى شقيني حتى قريه هرطوضة بابورتي كل كاميرا لقوة حري واي سوتحن ابن آدمك وحويا روحوا النقضي دقاق ومحال الله دادك على كعبسي مجرته حتى حدي وضنك نظامي الدولة وليه حتى دي أسكرتوا محل ميولو متاقنا وما أركيسو شدرات marka waxa hadii qofkii ma asoo laga yaabo inuu lacag badan qaato mushahar badan qaato oo meeshii uu ka shaqeynay hadii wax yar uu isiraahdo ama la kula joogin wuxuu doon jaab gashanaya marka wadaalika waartaan maxaa la meelo kamera ku taagan wali meeshii maxaa lacagta laga bixinayo ama lacagta makaashiyerka uu taagay 5 kamera ku taagan oo ninka maxaa laga la socdo subhanallah hadii kamerada ay dinto dadkoo dhan maxaa la lahay waa waxay doonaan ay sameeyaan. لكن إلهي سبحانه وتعالى وحنا الضبطي ونلا جوجا ونلا الصعدة ملائك عن باهي قبرين وأن دالين وأن جوري عنين وحوش ضيتين إن يقفك مؤمن كمحل الله أما قفك ابن آدم كا مصي قال وحدون هالنقطة وحقوا قبانايو أي مراقبة يانو يوجد إلهي سوى وحق هذا ما أنت ابن آدم دائما وأمورا بذين سو قرر مسجد مركا قفك مركو وراك سمينا دو وراك بيقرايان وليبا الله رابيا الحسنة بعشر أمثالها محل الله هدي حماتي وسمينا أهل العلم وحلي والله قرية روايك لو حلي ملك لو حلي بل لك أسق أمو توبك هنا أمو إلهي أسق النقضة حكودك دقيقة بل حقور النسك هدي قفو إلهي أطوبك هنا وإلهي هدنا واترايا سبحان الله وحي أسقو هدنا خور على قتريا سبتحوى إلهي أدون كيس توبيس وأقبلها مركا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أسوه مركا نوغد دقايا carabka dhibta uu leeyahay iyo uu lagu baraarujinayo uu leeyahay war qofiyo muslimka oo carabkaaga ha u isticmaalin illa wax ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka yahay mooyee ha u isticmaalin wax shariicada ogolaatay mooyee ha u isticmaalin wax mubaax ku ah. ولذلك عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سبحانه عليه السلام وحلي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. السلام عليه قفك الله إيمان قيامه رمي سبحان فيري الله رمي ما أنت قيامه رمي ربي بو رمي إن حسابته رمي ربي بو رمي إن ليس بحنا يرمي ربي بو رمي جني النار بو رمي سو قالوا كوما بلغا ربي ما رمي سنة لكن قيامه جت خلاص واسكن بنا يعني إلهي حلي نسأل نينك الله إيمان أنت قيامه رمي معنا ما أنت قيامه إلهي أنا بدبادية وعبسده يهولك يدبعت هذا أي جرتون مثلا وحوليه فليقل خيرا أو ليصمت. معنا وناك كحلو معنا وناك محيطها قرآن أخري حديث أخري ومضى وحشك وناك برارين وناك قفر حماتي الراب محال كلمات الطيبة فافي حديث أن سيدا يلي كريم أما سي وحدتك أدوية أنفعها توحوي يرثي ولا لو قلي مبوح لو قلي هواي ومضى محال أدوية أنفعها وان حاران هين توحبلي باتوك جيلا قفتك وشيغو أو مثلا ليصمت وردادا خير فري كرين حماتي رهيبي كرين ومضى wax anfacayna aad u sheegi karin lisaankan hadaan la mashquulinin oo wanaag lagu mashquulinin xumaan buu ku mashquulaya nasalaam wuxuu leeyahay amba hadaan sheegi karin wuxuu iska aamus dadka wataa culimadu ilaahay marka maxaa Allah sakata naja man sakata salima aw naja hadaad aamusto اللهم هدي أد كأمستو هرتا قف لقول ظلمنايو أما هدا أد كأمستو حق قف ليه ولا بوبايو أما أد كأمستو قف ديجي سال دادين أدو حكوك تاي أما أد كأمستو قف للدلمية دلمية أدو حكوك تاي أما أد كأمستو شهادة حقيقة هاي صوت إنك قريسو دي تاسو حويان دنوبة وين واي واحد لقاس لقى حد ما يتاس لكن وحي كاتو عن تربقشا oo aan qiimo lahayn oo aan wax aad ka faa'iideysan aan jirin qofku waxa way hadii aad aamusto waxa way cid ku oranaysa fulaan waa aamusay laakiin hadaa hadasho waa cudur daar baad u baahan ولذلك ولي ما أرتي قف كعذر دارنا يا أورنايا أو أبولوجيس بان كبحنايا رجال جريم بان كبحنايا أنا جوا محل الله وآمسنا محل صح حدي وحق آمسه أو مركو حقي محل الله وجذال وحسوسته إنه محل الله وحق الله بهنا وأسوي وقري أما وكآمسي أما إنه محل الله ده
laakiin haddii uu iska aamuso cid hayso, laakiin haddaad hadasho daa'iman cudurdaar baad bixinaysaa. sababtoo ah haddaad wanaag ku hadasho uma baahnid, laakiin haddaad xumaati ku hadasho dad xagxagato waxaad u baahantahay inaad raaligelin bixiso. walidaalika Sufyaan ibn Abdullah Thaqafi radiyallahu anhu ardaa nabi salaam markii uu la hadlayay wuxuu leeyahay rasuulullaahi waxaad ii sheegtaa islaamka wax aan qof gadaashaada qof aan weersanayn. salaam waxa ku yiri qul aamantu billahi thumma istaqim, amar waayaqto qul rabbi allah thumma istaqim, waxta rabbiga alla way kadibna toosnaaw. markaas salaam waxa ku yiri ya rasuulullaahi ma akhwafu ma taqafu alayhi, rasuulka ilaahi wuxuu waxa aad iiga baqanayso maxay yihiin. nabi salaam waxa leeyahay lisaankiisa shariifka gacantiisa shariifka ayuu lisaankiisa shariifka gacanta saaray wuxuu kuffa alayka hada ama sir asalaam haakada hada asalaam waxa uu ku yiri kan baan kaaga baqanaya. subhanallah salaam ninka waa u sheegay waxa tira ilaahay baan rumeeyay jida ku toosnaaw, laakiin wuxuu lisaanka kan dhibaato buu leeyahay iska ilaal. walaga ali waxay leeyihiin jaraaxatu maxal allah alxajar ama alasa tandamil, qof haduu ku daqro dhagax kugu tuuro oo bud kugu dhufto wax hatta xabad hadii kugu dhacdo waxa laga yaabaa qofku inuu maxal allah meeshii maxal la dhibka gaaray ay caafimaad dhicayso. laakiin jaraaxatu lisaan la tandamil, lisaanka jaraaxada uu gaarsiyo waxa weeyaan ma caafimaadayso. soo gudun walaga waxay leeyihiin dhagax tuuro meel lagu ku dhaca, laakiin hadal meel dheer buu gaaraa. ولذلك marka waxa weeyaan qofka hadal xun kugu yiraahdo waxa weey hadii xataa uu kugu cudurdaarto aad ogolaato waxa laga yaabaa qalbigaaga wali inuu maxal lahay uu dhibaato ku dareemayo. waliba mararka qaar dadku adoo maxal intay majlis ama meel dad joogo kugu ceebeeyaan ama kugu caayaan ama kugu aflagaadayaan ba intay kugu soo dhuntaan bay kuliga raali noqo macquul ma. ninka kan maxal lahay muslimka cirdiisa ku xadgubtay dad dhexdiisa ku xadgubtay hadana uu soo dhuumanaysa. waxa loo baahan yahay maxal majliskii oo mid ay istaagto tirado ninkii fulaanaha waa ka gardarnaa dulmigaas waan ka gardarnaa, laakiin yaa dhihi kara waxa dhihi kara qof ilaahay aakhira dan kale. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه عليه الصلاه والسلام حديث صحيح وحوري معاذ عليه السلام يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. يا رسول الله waxa ay tustaa amal jannada igelinaya oo naartana iga fogeynaya. السلام وحوري أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم وحديث هذه أظن يا رواي. من السلام وحوكيري مركي حديث كود باي محل الله الصلاة والسلام محل الله أولمي باو حوكيري ألا أخبرك بملاك ذلك كله. وحر وحانو أنا نكون صو شيء وحجك يسونك يجهاتك يستغفرت يمحل وحانو أعمال صالحة wuxuu wax ku kooba oo ku ilaaliya oo ku dhowra oo aad ku milkiso ma ku sheegaa. markaas maxaan lahay Mu'aad radiyallahu anhu arda nin saxaabi jaliila wuxuu ya rasuul naam sukilaayo ii sheeg. xasan salaam marka waxa leeyahay fa akhadha lisaanihi salaam wuxuu lisaankiisa ayuu qabtay gacantiisa shariifta ayuu lisaankiisa shariifka salaam uu ku qabtay ama saaray oo ku kuffa alayka hada wuxuu kan joog كف خلاص وحماتيا يا محاضر الله بهنين جاجي. السلام معاذ وحكوي يا رسول الله أو نؤاخذ بما نتكلم به. رسول الله وحي أنكو حلينه أنا قد بدي أدوك واقع وحلا يدوك هذا الكود أسكيرا وقفكم مركم مساعد كصباح أما قولي وقت كصباح ما يستوى وأرضاق وتجيو وقت بدل بوصل واحد ما لقي هذا markaan salaad. laakiin anaga maanta saan u soo kacno ilaa qorraxda ay ka dhacdo ilaa laga soo seexdo habeenka sariirta aan sfarino kulli waxa lagu jiraa social media qofku wuxuu doono ku hadlayaa marka asalaam markaas ya rasuulullah waxaan ku hadlayno darlaankan hadalkan faraha badan waxa la sheegay mana loo qabanaya. salaam wuxuu thakilatka ummuka ya Mu'aad hooyada ku weysay macna habaar ma aha waa kalima zajri way oo arab sibaajitay wuxuu leeyahay hal yakubu الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. السلام dadku naarta ma waxa galiya oo rahayn wixii afkooda ay ku hadleen. السلام wuxuu dadka naarta waxa galiya waxa weeyaan wixii lisaankooda uu ku hadlay naarta waxay ku galayaan waxa weeyaan carabkoodii baa balaaye iyo maxaa lahay ku hadlay. marka wuxuu naarta waxa lagu galayo waxa weeyaan lisaanka ugu horeeya wal ciyaad billaah. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث كلا صحيح وحلي إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها إلى جهنم 70 خريفا أو يهوي بها إلى جهنم
wuxuu rajul macna waxa loo jeedaa ama dadka rag iyo dumar waxay doonaan noqdeen wuxuu qofku wuxuu ku hadlayaa kalimad oo min sakhad ilaahay caradiisa keenaya oo marka asagu iska ciyaaray kaftan buu la jeeday waa ciyaaray danka ma wuxuu dadka qosol si buu islaha maxaa danka ma uusan galin salaam kalimada oo ilaahay caradiisa keenaysa marka waxa weeyaan asagoo ciyaaraya oo aan maxaa lahaay dadka qosol siinaya amba maxaa lahaay kaftamaya ayuu kalima ilaahay uu ka caroonayo ku hadlaya markaas waxa weeyaan jahannama ayuu ugu hoobanayaa subhanahu wa ta'ala شوف سبحان الله ولذلك لسانك وحوي أرنكيس أرن سهلا ما أرنكيس أرن محل الله ناس حديث كانوا يقولون قف وحقوق هذه الكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا يدخل بها الجنة وحلا يقف كلمة إلهي يكرها لقليل لكن أصلا قلت لقليل حسابك جري بكو حظي مثلا هذا ميل مريا نيل الظلمين هذا ارتي حسابك بجري وراسي ورنك الظلمية كداية سو قالوا وزن مر كلمات السجن حسابك مجري كو حظ الموصل لين لكن وحويان ربي با وافجي شو ومر رسول الله جنة يكون مدنيا marka kalimadii fiicnayd oo aan loo aabayeelina janna lagu mutay kalimadii xumayd ee qofku maxaa lahaay uu ku hadlay asagoo ciyaarayana waliyaak Soomaalidu kaftanka iyo hadal fara badan oo dadku wax iska noqdaan wax iska caadiya mar qof waxa weeyaan naar buu ku mudanaya wal ciyaadu billaah abi Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa ardah وحو نبينا عليه الصلاة والسلام كورنا يا أوليه قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل وحرسولك الله يو المسلمين أو قيمة بدن يا أو قيمة بدن وشرف بدن السلام عليكم من سلم المسلمون من لسانه ويده دتك المسلمين أو قيمة بدن قف قدتكو أي كما يتقالان لسان كيس يقعن تيسا من لساني أولا ويده معنا قعنت هذا إن دتك الظلمين لسان هذا إن دتك الظلمين حتى سدا يشو وحنقول ليس مسلمين دتك أو قيمة بدن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حديث إمام الترمذي وصوص صاري وحولي سبحانه عليه الصلاة والسلام من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة ننكي إلهي وكإله عليه شرط معنا لبدي سدان نحوذ كجته ومعنى لسانك يا لجدا إلا لسانك ولي بديه لبعت بدن بوليه مركينا السلام عليه ننكي إلهي كإله عليه شرط كل حجرته labadii sadaan dhaxood oo lisaanka ayaa loo jeedaa ama afka oo dhan baa loo jeedaa oo qofku xaraan ku cunin xaraan gelinin oo wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka yahay oo kaliya uu ku cuno madamkiisa wanaajiya ama lisaankiisa kaliya maxaa lahaay wanaag bay xumaat uusan ku hadlin marka ninka Ilaahay ka ilaaliya wuxuu yiri shartaas ima bayna rijlihi labadiisa lugood dhaxdood oo afarjiga uusan la doonin waxaan Rabbi subhanahu wa ta'ala raali ka ahayn oo meel Ilaahay xalaal uga dhigin uusan la doonanin asala wuxuu dakhala aljanna subhanallah lisaanka janna lagu galaa rijlayinka hadii la ilaaliyo idan janna lagu galaa sahri bin sa'd sa'idi radiyallahu anhu arda asala wuxuu leey man yadmanu li ma bayna lihyihi wa ma bayna rijlihi mahal adman lahu aljanna ya ibalan qaadaya inuu lisaankiisa daankii labadiisa daan dhaxooda waxa ku jira oo carabkiisa iyo labadiisa lugood waxa ku dhex jira oo farjigiisa oo ilaaliya dhowra xumaati ka dhowra lisaankiisa xumaati aan la raadin farjigiisa meel xumaa aan loo aadin wanaasala wuxuu leeyahay waxaan u ballan qaadayaa buu janno subhanallah ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahyuha ilaahi baa u sheegay marka waxa la saas wahyi min Allah azza wa jalla marka lisaanka waxa weeyaan la ilaaliyo maxaa lahaay janna lagu galaa أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وحسبان عليه الصلاة والسلام وكورنا يا أوليه أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج وإحنا سنة وبضا وددك نار تقليه وحويا لبدا الضلوشة معنا أفكي إيه فرجي إلا أفكي وحباء قلا فرجينا وحباء كصاب لو الضلوشة لبدا مثلا وحولي waxa ugu badan oo dadku naarta ay ku galaan labadaasi way ana lisaankoodii abafkoodii waxba ma uma ambayeen waxay doonaan ku hadleen farjigoodina waxaan Rabbi subhanahu wa ta'ala raali ka heemay sameeyeen marka dadku ahli culay ma jiro wax uga baahan in la xiro oo xabsi la galiyo aan ahayn waxay leeyihiin maxaa la lisaanka marka lisaanka dibkiisu waa badan ilaahay marka ina qof muuminka ilaahay uu baryo ilaahay lisaankayga wanaag mooye xumaati maxaa la lahaye hawa ilaahu lisaankay wanaag waafaji oo xumaatada iga ilaali qof daayiman u abadan marka lisaankan umada isku daray dhibaatada geesiin in loo baahay in la dagaalano oo aan maxaa la daayiman wadan aan daba taagnaado oo ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ku cabsano hadii qofku sida uu yeelo adduunyada waa badbaadiyo umada waa ka badbaadaya
asna waa badbaadaya aakhirana biidn illahi caza wajalla waa uu badbaadaya marka lisaankan ama carabkan aan u adeegsano keliya wixii ilaahay ogolaaday shareecada ogolaatay iyo maxaa lalahay wixii wanaagsan wixii ilaahay uu diiday shareecadu ay diiday xumaatidana isku dayno inaan carabkeen aan u adeegsanin ilahay waxaan warsanaynaa adoomo saalixiin naga dhigo wajazaakum allahu khayran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.